Hi akhyaarta soo dhawaada muuqaalkeena maanta wuxuu ku bilaabanayaa Jason iyo familkiisa oo wada qadaynayo. Jason familkiisa waxaa kala dhaxeeyo dagaalkaas oo ah iskuulka. Jason iskuulka kama keeno wada fiican. Jason familkiisa waa famil faqiiriin ah, laakiin Jason asxaabtiisa ayaa waxay yihiin kuwo fasahaadiyo Jason. Waxay iska bacdi waxa arkeenaa Jason oo la taagan ardayda kamid ah. Ardaygan ayaa wuxuu u wada Jason lacag, waxaan lacagta u soo dhiibay walaalkiis kaas oo ah mid ku jiro xabsiga. Jason walaalkiisa wuxuu ganacsi jiray waxyaabo daroogis iyo waxyaabo kale, sidaas ayaa wax loo xabsiga. Waxay iska bacdi waxa arkeenaa Jason oo ku jiro xisadiisa. Xisadan waxa ku helinaysay macallimad cusub. Macallimadan cusub ayaa waxay isbaraysay ardayda. Magaceedan waxa la lahaa Lala. Macallimadan cusub ardayda waxay u sheegi doontaa backgroundkeeda iyo waxbarashadeeda maadaama ay ku cusub tahay iskuulka iyo fasalkaanbo. So waxay ku xigtay macallimada oo soo dhaqsatay fasalkeeda. Waxay tirtirinaysay sabuurada. Waxa albaabka ku soo istaagayo macallin kale oo magaciisa la dhaho Andrew. Andrew wuxuu isbari doonaa macallimadan. Iyadana sidoo kale waxay u sheegi doontaa magaceeda. Macallimadii Lala waxay la hadlaysaa hooyadeeda. Mar walbana waxay samaysaa in la hadasho hooyadeeda markay ka soo tagto iskuulka. Waa hagaag waxaan arkaynaa Jason iyo hooyadiisa oo isku dhagan. Jason hooyadiisa wuxuu ku dhagan tahay oo soo daahay. Wuxuu guriga imaaday waqti dambe. Waxayna ku leedahay waxa rabtaa inaan qati walaalka camal. Waxayna ku leedahay wax baro iyawna imaa gurigaaga. Sida caadiga ah waxa la qaadanaya xiso. Xisada markay dhamaato Jason ayaa wuxuu u tagi doonaa macallimada cusbeed ee dhigaysay Ingiriiska. Wuxuuna ku dhihi doonaa iga shaqay exercise-yada iyaalo. Laakiin macallimadii ay la yaabayso waxayna ku leedahay ardayda dhamaantood exercise-yada ay ka soo shaqeystaan. macallimada ayaa wuxuu ku dhahayso adiga arday ma tiid miya maxaa ka qaldan kamana soo shaqeey karti miya. Laakiin Jason ayaa xanaaqa isla markiina wuxuu ka baxayaa fasalka. macallimadii ayaa ka soo daba cararayso. albaabkan waxa ugu hor imaanayso macallimad kale. macallimadan ayaa iskuulka waxay ka tahay xisaabiye. waxaan u sheegi doontaa ardayga inuu yahay arday aan caadi ahayn iska dhaafto. laakiin macallimadii la dhahay Lala oo dhigaysay Ingiriiska ayaa wuxuu ku dhihi doonto ani waa shaqadeeda inaan caawiyo ardayda. waxaan ku dhihi doontaa ardayda qof walba waxaan jeclahay inaan ogaado wax ka qaldan. laakiin macallimadii kale ayaa wuxuu ku dhihi doonto waa maasan tahay. waxaan ku dhihi doontaa waxa taa macallimad fiican hadaad caawinaysid ardayda. taasna waa shaqadaada iyo shaqadeeda. waa hagaag waxaan arkaynaa maalintii ku xigtay Jason oo soo jeedinayo PlayStation. markuu PlayStation ka dhameeyana waxa uu hambalay doonto macallimadii la dhahay Lala. waxayna ku dhihi doontaa waxa tahay arday fiican. macallimadii Lala heeday waxay imaanaysaa xafiiskeeda. waxaana waqtigaas la joogay ardaygii ahay Jason. macallimada waxay ku leedahay ardaygan waxaan arkaa buundooyinkaada hore waxayna ahaayeen kuwo aad u liito. waxay ku dhihi doontaa arday fiican iska dhig korna u qaad buundooyinkaaga. macallimadii Lala heeday warqado fara badan ayay waday. warqadahaas ay waxa ugu jirtay warqad kale. subaxdii kale Jason iskuulku wuxuu ku soo aasanayaa aaskii. sidoo kalena waxaan arkaynaa macallimadii Lala heeday iyo macallinkii Andrew ahay oo isla jooga oo sheekaysanayo. macallinkii Andrew ahay ayaa macallimadii Lala ay ku dhihi doono cawada ma wada kulmi karnaa kafayna ma soo wada cawi karnaa. laakiin iyada ayaa ka yeelayso wayna ogolaanaysaa. macallimadii waxay dib u kulmi doontaa Jason. waxayna ku dhihi doontaa ilaa hadda waxba iskama ka bedelin maxaa ka qaldan. laakiin Jason ay wuxuu u sheegi doono xaafadda inuu ka saaran yahay cadaadis. wuxuuna u sheegi doonaa wax walba oo familkiisa ku saabsan. wuxuuna ku dhihi doonaa aniga familkeyga waxaa naga dhaxeeyo dagaal. wuxuuna ku dhihi doonaa hooyadii waxay jeceshaa inaan keeno buundooyin aad u fara badan. sidoo kale wuxuu ku leeyahay hooyadeeda ma ogolo in asxaabtay waqti la soo qaato hal mar. wuxuuna u sheegi doonaa walaalkiis Kevin asiga inuu ku jiro xabsiga. wuxuuna ku leeyahay waxay u malaysaa sidaas camal inaan naqanayo. waxayna cadaadis ugu saartaa waxbarashada. sidaas awgeed waxaan nacay waxbarashada. macallimadii Lala heeda ayaa waxay ogaanayso ardaygan inuu maadooyin fara badan oo ka dhaxsan yahay. waxayna ogaanaysaa maadooyinkaas in dib loogu dhigo u baahan yahay. waxayna ku dhihi doontaa waxa ku sii doonaa class dheeri ah. waqtiga firaaqadaysin waa ii imaan kartaa. waxaan ugu imaanaysaa xafiiskayga. waxayna ku leedahay maalin kasta waxaan ku siiyay 30 daqiiqo. sidoo kale Jason wuxuu wadi assignment. macallimada ayuu u dhiibaya assignmentiga laakiin waxa ku jira halkaas kaftan yar. waa hagaag waxaan arkaynaa macallimadii iyo macallinkii oo ku kulmay baar. waxayna halkaas ku wada cabayeen cabitaan. waxayna wada qaadanayeen waqti. waxa baarka qayb kamid ah joogay Jason. wuxuuna arkayay macallimada iyo macallinka oo wada sheekaysanayo. waxaa la shidayaa baarkii music. waxaana dheelayo macallimadii iyo macallinkii. waxay u soo baxayaan banaanka. macallimadu waxay ahayd mid daalan. macallinkii ayaa wuxuu u wacayo gaari taxi ah wuxuuna saaraya gaarigaas. subaxdii ku xigtay macallimada oo joogto iskuulka ayaa waxay daaqada ka arkayso ardaygii ahaa Jason oo iskuulka u gambinayo. macallimadu waxay leedahay wuu soo noqonayaa laakiin macallimadu waxay arkaysaa inuu xisadan dhan oo imaanin asiga. kursigiisana wuxuu ahay mid cidla ah. Jason wuxuu imaan doonaa xisadiisa oo maalin walba la siiyay 30 daqiiqeed. wuxuuna u imaanayaa macallimada. wuxuuna u imaanayaa xafiiskeeda. laakiin macallimada ayaa waxay weydiin doonto inuu ka maqnaa xisada maanta. laakiin asiga wuxuu dhihi doono mar dambe ma gambinayo waa balan aan ku qaaday. Jason wuxuu soo ag fadhiisan doonaa macallimada. wuxuuna ku dhihi doonaa macallimada mar dambe aniga ma gambinayo. wuxuuna u raali gelin doonaa si aan caadi ahayn. laakiin Jason ayaa macallimada wuxuu ka qabanaya gacanta. wuxuuna ku dhihi doonaa waxaan naqanayaa arday fiican waxaana keeni doonaa buundooyin aad u fara badan. laakiin macallimadii ayaa markii gacantiisa iska qaadayso. maalintii ku xigtay macallimadu waxay joogtay gurigeeda waxaana da'ay roob. macallimadu waxay la hadlaysay hooyadeeda. waxaana albaabka soo gargaraacayo ardaygii la dhahayay Jason. macallimada markii albaabka furtay waxay arki doontaa ardaygan oo yaalo dhaabac. waxaana ka socodsan
taleefankiisa dhiig. Macalimadii si dhaqsiya ay wax u jaraysaa taleefanka. Macalimada sida uu dhaqsiya badan ay wax u caawinaysaa ardaygii, waxayna weydiinaysaa wixii ku dhacay asiga iyo wixii soo dilay, laakiin asiga uguma jawaabayo su'aalahaas, wuuna iska boojeenaya. Macalimadii wax u soo qaadaysaa gurigiisa, waxayna soo qaadanaysaa gaarigeeda. waxaa halkaas ku sheekaysanayay Jason iyo macalimadii Lana. Jason macalimada wuxuu ka codsanayaa inuu roobka da'ay banaanka ugu baxayo, waxayna u joojinaysaa gaariga. macalimadii iyo ardaygii Jason ahay waxa ku dii doono roobka. Jason ayaa macalimada wuxuu soo bandhiganaya jacayl, laakiin iyada ayaa ka cararayso, waxayna ku noqonaysaa gaarigii. sidoo kale asigana wuxuu ku soo noqonayaa gaariga. macalimada markii gaariga soo raacdo waxay u sheegi doontaa Jason wax fara badan, waxayna ku dhihi doontaa waxaa tahday arday, waxaana tahday qof soo baxaya hadda. waxayna ku dhihi doontaa anigu waa kaa weynahay, ma ninihiin laba qofood oo isku fac ah. waxayna ku dhahaysaa waxaa kala nahnay arday iyo macalin, waxaanoo kalena mana dhex mari karaan. waxay riska bacdiha waxaa la soo gaaray Jason gurigiisa, wuxuuna ka deganayaa gaariga. subaxdii marka la imaado iskuulka labadoodu way is inkirayaan. waxaan arkaynaa Jason hooyadiisa oo hagaajinayso guriga, waxayna ku arkaysaa qolka Jason buundada oo ka keenay iskuulka inay tahay buundo aad u sareyso, waxayna ogaanaysaa ee ku farxaysaa inuu wiilkeeda noqday wiil aad u fiican. Jason hooyadiisa sidoo kale waxay arkaysaa taleefanka Jason, waxayna fiirinaysaa sawiro u jiray taleefanka. sawiradaas waxay ahaayeen sawirada macalimada, mana taqaano meel uu ka keensada sawiradan. Jason waxa uu imaanayso hooyadiisa, waxayna weydiin doontaa su'aalo, waxayna ku dhihi doontaa sawirada macalimada maxaa moobilkaada geliyay, wuxuuna ku dhihi doonaa waxaa kala soo degay social media waan iska dileedayaa. laakiin Jason hooyadiisa kuma arki jirin dabeecadaha noocaan ah asiga. macalimadii Lala aheeday iyo macalinkii Android ahay waxay wada qaadanayaan waqti mar kale, waxayna ku sheekaysanayaan baarka. labadoodu waxay u ekaayeen laba qofood isku faraxsan, waxayna isweydiinayaan su'aalo fara badan oo ku saabsan noloshooda. laakiin sida caadigeedii baarkan waxaa imaada markasto Jason, wuxuuna arkayaa ayaga oo fadhiyaan mar kale macalimadii iyo macalinka baarka, wuxuuna kor ka daawanayaa macalimada iyo macalinka. macalimadii Lana aheeday markii aragto Jason waxay ku dhihi doontaa macalinkii waxa isoo wacayso hooyadeeda, waxaan rabaa inaa la waqti la soo qaato hooyadeeda, waxayna iskaga tegaysaa baarka. isla markii macalimada kacdo waxaa soo ag fadhiisanayso macalinkii gabar kale uu joogto baarka, waxayna halkaas ku dhex marayso sheeko. macalimadii Lala aheeday waxay joogtay guriga, albaabkana waqtigaas waxaa soo gargaraacayo ardaygii Jason ahaa. macalimada way ka furaysaa, waxaana gudaha u soo galayo ardaygii. habeenkaas waxaa la jiifanaya macalimada ardaygii Jason ahaa. subaxdii markay ka soo kacaan waxay soo wada aasa doonaan iskuulka. subaxdii markay iskuulka yimaadaan waxay u sheegi doontaa macalimada Jason inuu iska ilaabo wax kasta uu dhex maray xalay, waxayna ku dhihi doontaa anigii adiga nolosheena waxay kusoo noqonaysaa si caadi ah, waxayna ku dhahaysaa nolosheena waa inay kusoo noqotaa si caadi ah. Jason wuu ka yeelayaa hadalkaas, laakiin Jason wuxuu wadiyay hadiyadaas oo ah katiin. Jason macalimada wuxuu ka codsanayaa inay isku qabato indhaha, wuxuuna rabay inuu xiro katiinka. macalimada way ka yeelaysaa hadalkiisa, wuxuuna u xirayaa katiinka. macalimada waqtigaas aad ay u faraxsaneeday. macalimadii habeenkii waxay la hadlaysay hooyadeeda, waxayna u sheegaysaa hooyadeeda inay leedahay xiriir, waxayna ku dhihi doontaa waxaan jeclaaday wiil aad u da'yar, laakiin hooyadeeda uma sheegi doonto inuu yahay ardayda iyo wax barto mid ka mid ah kee jeclaatay, waxayna u sheegaysaa hadda inay wada leeyihiin xiriirkaas oo ah mid aad u fiican. maalintii ku xigtay Jason waxay ku soo qaadaysaa macalimada gaariga, waxayna meel ay ku qaataan waqti. macalimada iyo Jason waxaa laga dareemaya jacayl aad u fara badan labadooda. macalimada Jason waxay u sheegi doontaa inay hore u guursatay, laakiin ninkaas oo ka tegiyay, wuxuuna Jason u ballan qaadi doonaa noloshiisa inta ka dhiman inuu la dhameysanayo iyada. Jason wuxuu soo baxsan doonaa taleefankiisa iPhone-ka, wuxuuna rabay inuu la galo macalimada sawir. macalimadii ayaa ka diidayso, waxayna ku dhihi doontaa sawiradan waxaa laga yaabaa inay arkaan dad kale ee naga dhaaf, kuleeda fikirkaas ma ahan fikir fiican. laakiin Jason ayaa wuxuu ku dhihi doono ima jeclid miya adiga, maxaa dhacay oo igu diidaysaa inaa ila gashi sawir. laakiin macalimada oo Jason aad u jecel ayaa waxay la geli doonto sawirkii. waa hagaag. Jason hooyadiisa sida caadada ah waxay hagaajinaysaa qolka Jason, waxayna arkaysaa taleefankiisa. Jason hooyadiisa markay fiiriso taleefanka waxay ku arki doontaa macalimadii iyo Jason oo sawir iska soo galeen, kuwaasoo ah kuwa akhlaaq xun iyo kuwa kaleba. Jason hooyadiisa sida u dhaqsiyaa badan ay waxay u imaanaysaa iskuulka, waxayna ugu tegaysaa macalimada fasalkeeda. Jason hooyadiisa way xanaaqsaneed, laakiin macalimada ayaa waxay ku dhaysay istaji. laakiin Jason hooyadiisa ayaa waxay ku dhihi doonto waxaa tahday qof weyn, waxaan rabtaa inaa cunugayga si sirati, waxay ku dhihi doontaa wiilkayga waxa uu rabaa mustaqbal aad u fiican, waxayna ku dhihi doontaa ka fogaa wiilkayga, haddii kale waxay ku leedahay wixii dhaco waxa ku arkaysaa indhahaada. Jason hooyadiisa markaysaan u baxdo waxaa imaanayso maamulada iskuulka, waxayna maqlaysay maamuladan buuqa ka dhacay meesha, waxayna weydiinaysaa macalimadii Lala aheeday maxaa qaldan. laakiin macalimada ayaa waxay ku dhihi doonto wiilkeedu wuxuu ahaa mid saaqid ah, mana keeni jirin buundo fiican, waxay ku dhihi doontaa hadda wuxuu keenay buundo aad u fiican, waxayna leedahay aad ay u faraxsan tahay ee ma ahan qayle iyo buuq. habeenkii markuu imaado Jason guriga waxaa ku qaylinayso hooyadiisa, waxayna ku dhihi doontaa macalimadaas kaabin ka har. laakiin Jason kama xishoo doono hooyadiisa, wuxuuna ku dhihi doonaa waa jeclahay qoftaasni waa nolosheeda. hooyadiisa ayaa waxay ku dhihi doonto macalimada aad ay kaa weyn tahay, wayna ku dhali kartaa, laakiin asigoo xanaaqsan ayaa wuxuu ku dhihi doonaa iska ilaaw daada aad ku fara badan ee aniga iga weyn tahay. waxaa maqlaaya buuqooda Jason aabihiisa, waxaana soo dhex galaya Jason aabihiisa, laakiin hadalka wuxuu ku soo xirayaan meeshaas. Jason hooyadiisa oo xanaaqsan waxay wacaysaa macalimada, waxayna ku dhihi doontaa macalimada haddaad gaari weysid
cafis wiilkayga waxaa igu ballan ah inaan ku xiri doono waxayna ku leedahay waxaan ku wici doonaa sida uu dhaqsiyaha badan booliiska Jason asiga wax ogeyn wuxuu u imaan doonaa macalimadii Lala ahayd oo kala dhexay xiriirka laakiin macalimadii ayaa waxay ka celinayso albaabka waxayna ku leedahay iga fogaaw waxay ka saari doontaa albaabka Jason macalimada waxay soo samaysanaysaa kufay iyadoo cawaysa kufayga ayaa albaabka waxa loo soo dhigi doonaa warqad macalimada marka istaagto ay soo fiiriso warqada waxa ku qornay jacaylkaas oo ah mid calaacad ah wuxuuna Jason qirtay dembigaas oo ah sawirada ay aragtay hooyadiisa macalimadii waxay iska cafinaysaa Jason waxayna ka furaysaa albaabka Jason wuxuu waday wax uu soo gudiyay macalimada labadoodan waxay sii doonaan hab Jason macalimada wuxuu soo jeedo doonaa fikirkaas oo ah inay ka tagaan magaalada macalimada oo ku qanacsan fikirkaas ayaa ka ogolaanayso Jason subaxdii ku xigtay macalimada waxay imaanaysaa iskuulka waxaan iskuulka dhexdiisa ku qabanayo Jason wuxuu weydiin doonaa inuu fikirkii xalay oo ka dhaadhacay in kale laakiin macalimada iyo Jason oo sheekaysanaya ayaa waxa ka arkaya kor macalinkii ahay Android macalinkii wuxuu u maseerayaa si aan caadi ahayn wuxuuna ogaanayaa in xiriir ka dhaxeeyo macalimadii iyo ardaygii Jason ahay habeenkii macalimadu waxay ku daahaysaa xafiiskeeda waxaan u soo galay xafiiska macalinkii ahay Android wuxuu isku dayi doonaa macalimada inuu ku kufsado meeshaas macalimada markay imaato gurigeeda waxay u sheegi doontaa wax kasto Jason oo ah jaceelkeeda Jason wuxuu ku dhigi doonaa adkayso wuxuuna geli doonaa macalimada laabta maalintii ku xigtay Jason wuu xanaaqsanaa wuxuuna joogay iskuulka wuxuuna ka xanaaqsanay Android wuxuu ku sameeyay Lala oo ah macalimada Jason wuxuu arkayaa macalinkii ahay Android Jason wuxuu ku cararayaa macalinka hal mar wuxuu ku bilaabay dagaal wuxuuna u dilayaa si aan caadi ahayn waxa soo gaaray halkaas booliiska waxaan lagu xirayaa Jason waxa kor ka arkaysay macalimadii ahayd Lala waxayna dareemaysaa inay dembi ku leedahay xiritaankan la xiray Jason waxa loo kaxeenayaa xabsiga waxaan u kaxeenayo booliiska Jason isla markii waa la soo deynaya waxaana soo deynayso hooyadiisa macalimadii Lala ahayd ayaa wuxuu ku sugaysay banaanka laakiin markay u soo dhawaato ee ka waraysan doonto xaaladiisa Jason waxa ku qaylinayso Jason hooyadiisa Jason ayaa kalkiisa wuxuu ku qayli doona hooyadiisa asigoo ku dhahayo iska dhaaf hana ku qaylinin maalintii ku xigtay macalimadu waxay bixinaysay xiso laakiin waxaan imaanin oo soo xaadirin Jason macalimadu waxay dareemaysay stress aad u fara badan macalimadii Lala ahayd waxay imaanaysaa gurigeeda waxayna isweydiinaysaa su'aalo fara badan su'aalahaas oo ah maxaa ku geeyay ardaygaas macalimadu waxay wacaysaa Android oo ah macalinkii waxayna ku kulmayaan mar kale baarka macalimadu wuxuu u sheegi doontaa Android wax fara badan waxayna ku dhigi doontaa haddii nolosha ka fogaawayso waxa ku dhamaysan doontaa xabsiga macalinkii asigoo hadlin ay wuxuu iskaga tagi doonaa meeshaas macalimadii Lala ahayd sidii u dareemin ceeb iyo fadeexo waxay iskaga tagi doontaa magaalada dhan waxayna bedelanaysaa lambaradeeda waxa arkeena macalimadii oo saaran train iyadoo ooynayso oo aad u murugaysan dhamaadka filimkeena waxa arkeena Jason oo asigana aad u murugaysan wuxuuna u dirayaa macalimada fariimo aad u fara badan iyadana uguma soo jawaabayso haddaa jecesha inaad ka soo hadalno filimada noocan camal ah qisooyinka dhabta ah waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe saartay haddaad ku cusub tahay muuqaalkani like ay saartay si uu gaaro dad aad u fara badan aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh